Hello, subax wanaagsan. Maanta videogan waxaanu kaga hadli doonaa caseski inoo socon jiray ama weekly caseski. Marka caseka maantan waa case vascular ah, sidaad uga jeedaan sawiraantan. Marka waxaan samayn doonaa, waxaan idin tusayaa sawiraanta patientka, markaan idin siiyo clinical historyga patientka. Kadibna sawiraanta markaad fiirisaan wixii commenti ama pathology ayaad si leedihiin aad ku aragtaan micnaha imagingka ayaad marka your own self aad diagnosis ka gaari kartaa marka. So intaanan u gudbayn inaan idin tuso one by one sawiraanta patientka. Patientka xaaladiisu waxa weeye waa 70 jir ama 70 years old male ah. Waxa uu u yimid micnaha dhabarka ayuu ka cabanayay ama chronic back pain buu leeyahay. Marka lumbar x-ray ayaa loo diray sida routine-ka ah. Kadibna CT ayaa la qaaday kadib markii lumbar examinationka lumbar x-ray-ga lagu sameeyay. So sawirka ugu horeeya waa lumbar x-ray ama lumbar spine x-ray oo AP projection. Sawirka labaad waa lumbar spine lateral projection. Sawirka saddexaad waxa weeye CT scan, marka contrast enhanced CT scan loo sameeyay patientkii. Okay, haddii aan usoo noqono markaas sawirka ugu horeeya, inta aynaan interpretation ka bilaabin, haddii aad daawanaysid videoga waxaad samayn kartaa inaad pause aad saartid, kadibna adigu aad ka fikirtid waxyaalaha findingska ah aad ku arkaysid sawirka, kadibna marka aad sharaxaada dib ka dhageysatid. Okay, so haddii aynu ka bilowno sawirka ugu horeeya, so basically patientkani sidaan hore usoo sheegnay 70 jir dhabarka ka cabanaya. Sidii routine-ka ahayd lumbar x-ray baa loo diray. Maybe in patientku dhabar xanuunka badan hadduu ka cabanayo most of the time waxaa laga yaabaa lumbar x-ray in loogu diro haddii degenerative disease oo kale uu jiro ama osteoarthritis oo dhabarka kaga dhacay oo kale. Laakiin x-ray-da wax kale ayuu tusay. Sidaad u jeedaan sawirkan aad arkaysaan hadda AB-da ah, levelka L2 waxaad u jeedaan in ay jirto faint mass ama wax unusual ah oo kasoo baxsan markaa especially vertebral area, paravertebral area kasoo kuusan. Sidoo kalena waxaad u jeedaan marka laga soo bilaabo T12 ama L1 in calcification lumbarka. Marka hadda markaan AB-da aan sharaxayno exactly ma sheegi karno haddii calcification-kani uu ka soo horeeyo ama ka dambeeyo lafaha lumbarka. So lateral baa mar walba qasab ah, xagga dambe aynu kaga hadli doono. Laakiin haddii aad u jeedid sawirka x-ray-du marka la qaadayo waxyaalaha disadvantage ay leedahay waxa weeye wax walba superimposed way oo wax walba isdul saaran yihiin. It's not like CT-ga ama MRI-ga ama ultrasound oo multiple areas laga arki karo wixii. So haddii aad u jeedaan marka faint area oo calcification ah oo hoos u soo degsan oo levelka soo raacsan laf dhabarta waad u jeedaan. Sidoo kalena xaggan spinous process-ka dhinaceeda waad u jeedaan this fine calcification oo hoos u soo soconayo all the way down lasoo gaadhayo levelka lumbarka waxaan ka wada sacrumka. Sidoo kalena waad u jeedaan in xaggan uu jiro mass ama micnaha wax unusually dee aan ahayn laf oo kale laakiin hyperdense ah. Jeedaan hyperdense ah. So haddii marka aynu ka hadalno calcification-ku, sidaan hore u sheegnay calcification-ku waxa weeye videoyadii hore waa marka meel calcium deposition ay ku timaado. Meelaha ugu badan ee ku dhacdana waxa weeye waa blood vesselska, xididada dhiigga. So haddii case-kan oo kale aad aragto, waxa aad ka fikiraysaa micnaha organ-kii ama anatomy-gii ayaa mari kara
areadan marka ama areadan lumbarka ku beegsan ama mid sagittal plane-ka uu leeyahay jirku. Okay, so haddii marka aad garan weydo what kind of organ baa mara marka ama what kind of blood vessel baa mara xaggan, haddii aad eegtid sawirka lateralka ah ama lateral lumbar spine-ka, waxaad u jeedaan in patientku aanu lafdhabarta dambe ama lumbar boneska aanu wax badan aanu ka qabin, disc spaceski inay normal ay yihiin, maybe some bit of osteoarthritis ama bony outgrowth ama spurs inuu qabo, laakiin findingka fara badan ama findingka weyn waxa weeye haddii aad u jeedaan anterior to the lumbar spine waxa mara aorta ama abdominal aorta. Waad u jeedaan in abdominal aortihi laga soo bilaabayo all the way from T12 ilaa inta laga soo gaariyo L5 in uu micnaha calcification uu sameeyey, sidoo kale inuu xaggan diameterka uu weynaaday marka. So you can see halkan waa normal diameterka uu lahaa abdominal aortuhu, xagga hoosena the same, laakiin xaggan dhexda you can see in micnaha enlargement uu sameeyey ama ballooning wax loo yaqaano, micnaha inuu kuusmay oo kale ama uu diameterkii weynaaday. So tan waxay calaamad u tahay marka xaaladda loo yaqaano abdominal aortic aneurysm ama triple A. Marka abdominal aortic aneurysm boqolkiiba 85 waxa weeye waa incidental finding ama patientku isagoon is ogeyn ayuu iska qabi karaa, micnaha especially dadka waaweyn ee xanuunada qaba cardiac problemka ama ha noqoto coronary artery disease ama ha noqoto macaan, any cardiac problem ama any cardiovascular problem patientadu marka ay qabaan qofkuna uu da'diisa u weyn yahay, you can see x-ray-yadooda in calcification uu jiro mar walba arterieskooda. At the same time sidoo kalena patientkan in uu leeyahay abdominal aortic aneurysm ama inuu aneurysm uu sameeyo. So aneurysm basically waxaa laga wadaa marka boqolkiiba 50 diameterka arterigu uu ballaadho marka ama uu enlargement uu sameeyo. So hadda modality-ga ugu fiican ee lagu ogaan karo marka what kind of aneurysm baa jira ama si fiican u soo saari kara waa CT-ga. So patientka CT baa loo diray, waanaad u jeedaan fine calcification soo raacay abdominal aorta all the way ilaa inta laga gaarayo xagga uu aorta uu ka kala qaybsamo oo ah iliac artery-ga, common iliac artery. So calcificationka marka laga imaado waxaad u jeedaan halkan areadan ka hooseysa renalka ama so kuwan waa renal arterieski, the renal arteries. Marka boqolkiiba 90 aortic abdominal aneurysm ama abdominal aortic aneurysm waa infrarenal ama keliyaha ka hooseeyaan ama renal artery-ga mar walba ka hooseeyaan. Xagga boqolkiiba 15 la yiraahdo juxtarenal ama inay ka sareeyaan keliyaha marka arterieskooda. Sidoo kale waxaad u jeedaan thrombus, dad u jeedaan line-ka aad raacdaan thrombus fadhiya marka areadii uu ka dhacay aneurysmku ama ballooning uu ka dhacay. So this cases waxa weeye qofku waxa u baahan yahay kaliya monitoring, lala socdo xaaladiisa caafimaad mar walba xagga aneurysmkiisa uu marayo, because it's very serious haddii micnaha uu aneurysmkani rupture uu sameeyo, especially markuu aad u weynaado kale qofkuna uu qabo high blood pressure uu qabo ama xanuuno kale oo cardiovascular problem uu qabo, way ku keeni karto qofka marka in aortihi uu sameeyo rupture uu sameeyo, especially anterior rupture uu sameeyo, kadibna peritoneumki dhiigii uu ku daato marka it's very serious, qofku waa vital markiiba uu dhiman karo. So it's very important marka aad sameynaysid interpretationka lumbar spine-ka, especially dadka waaweyn waad arki kartaa mar walba waa normal inaad aragtid calcification, laakiin inaad fiirisid sidoo kalena calcificationka haddii diameterki marka blood vesselku uu weynaaday oo kale. Marka case-kan waxaa lagu diagnose gareeyay inuu yahay
abdominal aortic aneurysm stable ah, keliya u baahan monitoring u baahan oo wax qaliina aan u baahnayn. Thank you so much, aad baad umahadsantihiin. Xaggaas ay inoogu joogayaan maanta keyskeenu.